wardheer iyo meelo badan oo deegaanka waxaad ogtihiin in leer la'aantu ay dhibaato badan ku haysay wardheer muddo hadda aan malaynay in laga joogo 22 sano ka hor leerka heshay 6 saac waan joogay anigu marka arday baan ahaa waan fasax baan ku iman jiray marka leerkii 6 saac ay markaas afarta xaafadood ee waqtiga ka jiray ay heli jirtay magaalada dhan matoorkii ka halaaway cid u bedeshay iyo cid u hagaajisay ma jirin intaas oo sano kadib wax u kordhay iska dhaafay 6 sano ee 6 saacadood ee xaafadaha wada gaari jiray bay hoos u dhacay marka maadaama shacabkuna baahi badan u qabaan annagana su'aalo badan soo weydiinayeen laba arrimood baa noo banaanaa leerka 24 saac oo soo socda oo hadda goday ka soo baxay qabdahar substation-kii la dhameeyay kii macnaha biyaha ku shaqeynayay Ethiopia oo dhan waagi dhaweyn 24 saac dhagax buur laga furay oo kale intuu ka soo gaarayo inaan sugno ama inaan iyaga dhahno bal wax kale oo u keeni kartaan dadka u keena oo taan uu sugitaana in anagu wax qabano waxaan sameynay marka anagoo la kaashanayna madaxweynaha dowladda Soomaaliya inuu noo fasaxo matoor xafiiska horumarinta magaalooyinka yaalay inuu noo ogolaado inaan wardheer soo qaadno isagoo ku mahadsan uu noo ogolaaday baan matoor keenay matoorka cabirkiisa markaan fiirinay magaalada halka matoor laba matoor hadda yaal mid ka shaqeynaya 9 cabirkiisa macnaha cabirka lagu cabiro korontada waxay u baahan tahay 170 9 bay haysteen 80 ka dhimanaa ilaahay amarkiisa bal matoorkana buuxinaya marka hadda waxaan ku guuleysanay bay ka dhigan tahay marka matoorkan hadda la dajiyo ee shaqadu bilaabo magaaladu 6 saac ay heli jirtay muddadii hore inay soo noqoto taasi horta waa guul ilaahay baan ku mahadsan tan kalena saan u sheegayba leerka 24 saac qabl dahar in dhaqso laga bilaabo yaa rajeynina waxyaabo ka dhimanaa way soo ibsadeen kulli wayna la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka iyo maxamed yuusuf ablo oo ku-xigeenka madaxtooyada way la soo kulmeen taa markay soo dhamaato in qabl dahar uu ka soo baxo kudumbuur iyo cub waxa martaa u soo socdo gar loo gubay waafdhow aakhirka waxa baraaj saale oo soo dhaafay aakhirka inuu wardheer saa ku yimaado waxaan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa arintaas inaan xoog saarno haddii ilaahay yiraahdo horena waan u sheegnay ugu yaraan inuu horta qabl dahar sanadkan ka shidmo laakiin inaan ku dadaalo sanadkan 24 saac inuu wardheer soo gaaro master plan-ka nasiib wanaag xafiiska isaguna ku shaqalay xafiiska anigu aan hadda joogo horumarinta magaalada Kismaayo waa la bilaabay isaga laftigiisa speedkii la rabay kuma socdo hadday caqabado jiraan intaan xalino in si la dardar geliyo oo bilayar gudahood magaaladu qorshahaga fiican inay yeelato kadibna hadhowna caqabad ku noqonin qorshahaga la'aan inayna caqabad ku noqonin leerka 24 saac sidoo kale waxa isna dhinaciisa tilmaamay ujeedooyinka socdaalkiisan anteena mulaaku maamulaha laan shirkadda xoog korontada waxa uu yiri sida tan anteena mulaaku baaloon ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚና የሶማሌ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ስራ አስፈጻሚ ነኝ anteena mulaaku ayaa la yiraahdaa maareeye ku-xigeenka guud ee shirkadda adeegga leerka Ethiopia ahna madaxa laanta adeegga leerka Ethiopia ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaan ahay maanta waxaan halkan u nimid inaan generator ay dawladda deegaanka Soomaalidu u soo iibisay magaalada Wardheer aan adeegga leerka Wardheer ku wareejino matoorkan ay dawladda deegaanku Wardheer u soo iibisay ayaa ah 108 kVA wuxuuna leeyahay 85 kilowatt oo awoodda quwadda dabka ah sidaan wada ogsoonahay Wardheer waxa horay u yaalay laba matoor oo awoodoodu yartahay isla markaana inay magaalada adeegga siiyaan awoodoodu ku hooseyso marmarka qaarna cilad ayaa ku iman jirtay marka ay cilad ku timaadana muddo bilaa ah ayay labada matoor isbedbedeli jireen adeegana dhib ka haystay bulshada marka hadda maadaama ay 3 matoor yihiin generatorkan maanta la keenay aad ayuu u caawinayaa kuwii hore Wardheer waa magaalo weyn oo gobolada kuwa ugu ballaaran caasimad u ah dawladuna waqti xaadirkan horumarinta Wardheer fiiro gaar ah ayay siisay laakiin dhibaatadu waa iyadoo adeegga quwadda leerka Ethiopia loo bedelay kambiyaha ku shaqeeya ama hydroelectric power kaasina qabl dahar ayuu hadda soo gaaray annaguna markaan leerka gobol kale uga jiidayno waxaan awood u leenahay inaan leerka jiidno 100 kilomitir ilaa 120 marka sanadkan bulshada Wardheer waxa la siin adeegyada horumarineed oo dhan waxa markaas la filayaa in magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Dool ay soo saari doonto iyadoo ka faa'iideysanaysa isticmaalka xoogga korontada dhaqaalaha isla markaasina wax ka tara baahida nololeed ee bulshada iyo bilicda magaaladaas Wardheer Cabdifatax Axmed Kaabe warbaahinta SRTV gobolka Doolo magaalada Wardheer